wasaaradda maaliyadda ee dowladda Soomaaliya ayaa ku wareejisay 7 baabuur oo loogu talagalay in lagu shaqeeyo canshuuraha maamulada Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo maamulka gobolka Banaadir. Goobtan lagu wareejinayo gawaarida waxaa ku sugnaa wasiirada maamulada Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha maaliyadda ee maamulka gobolka. wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa ka hadlay wareejinta baabuurtan iyo waxyaabaha lagu qaban doono. lacagta waxay ahayd boqol kun oo la siiyey 5 gobol iyo gobolka Banaadir oo loogu talagalay in cashuuraha habeentooda ay ka caawiyaan socodka dhalinyarta ka shaqeynaysa cashuuraha inay ka caawiyaan boqolkii kuna qolo walba ku soo hagaagay waxaa loogu talagalay qayb IT-da ah iyo qayb transportation-ka ya socodka marka muxuu ahaa region waliba doortay isagu sidoo kala qaybinayay uu kala qaybiyay inta badan regionadu waxay doorteen 2 gaari iyo wixii soo haro IT-da Hirshabelle mooyaane Soomaha iyo Jubbaland marka halkan waxay leeyahay marka 7 gaari weeye 7daas oo loo kala leeyahay 3 Hirshabelle iyo 2 labada gobol ee kale aad baan ugu faraxsanahay marka inaan maantay aan idinku soo wareejino gobolada kale Jubbaland gawaaridoodii Jubbaland Kismaayo ka soo degtay ayagana sidan si leeg baa loogu wareejin doonaa labada gobol ee hadhay Galmudug iyo Jubbaland waxay ka soo degeen Boosaaso Puntland Boosaaso ka soo degeen marka ayagana sidan si leeg ayaa loogu wareejin doonaa marka aad baan ugu faraxsanahay gudoomiye inaan gawaaridaadi ku soo wareejino insha Allah taala waxaan filaynaa inay wax badan ka qaban doonaan baahida loo qabo socodka iyo magaranaysa adeega cashuuraha iyo uruntooda. wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Hirshabelle Maxamed Maxamuud Cabdulle ayaa ku hadlay afka maamulada lagu wareejiyay baabuurtan. waa ogtihiin dawladda canshuur qaadan dawlad ma noqoto annaguna waxaan laga rabaa inaan gawaaridan ku isticmaalno wixii loogu talagalay oo in canshuurta lagu ururiyo muddo dheer ay qaadatay laakiin waxaan rajaynaynaa inay noqoto bilow kii ugu horreeyey wasaaradda maaliyaddu ayaan anagu ka tirsannahay markii loo fiiriyo shaqo ahaan iyo maxaan ku raahdaa iyo mabda ahaanba wada shaqayn xooglena waa naga dhexaysaa waxaana tusaale u tahay maanta gawaarida aan la wareegayno ayadoo aan la siyaasadaynin oo aan maaragtay wixii technical ah ee wasaaraddu ay nagala qabato ayaan maaragtay muhiimaddu ay tahay. Zakariya Maxamuud Timacade, Universal TV, Muqdisho.